kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada waraysigan oo aan khadka telefoonka kula yeeshay cabdirashiid xaaji abuukar cabdi oo ah ama ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada Odense ee waddanka Denmark. cabdirashiid waxa uu kasoo baxay xisbiga alternative-ka waxaana maanta aan fursad u helay inaan waraysigan aanu la yeelano. ugu horreyn cabdirashiid kusoo dhawow barnaamijka. waxaanan jecelahay inaan marka ugu horeysa ku weydiiyo tirada dadka Soomaalida ee degan magaalada Odense haddii la hayo. aad baa umahadsantahay maxamed amiin. aad baan ugu faraxsanahay maaragtay inaad fursadan aan yeelano caawo aan kaga hadlayno kala golaha deegaanka magaalada Odense iyo shucuub ahaan shacabka Soomaalida tirada inta ay leegyihiin. qiyaastii Soomaalidu waxa weeyaan 2,000 walaal degan magaalada Odense hadda. xaaladda dadka Soomaalida degan magaalada Odense waa inkee cabdirashiid, gaar ahaan dhanka waxbarashada iyo suuqa shaqada? Soomaalida walaal nolosha ay halkan ku haystaan magaalada Odense aad iyo aad ay u fiican tahay. maalinta ka dambeysana way sii fiicnaanaysaa alxamdulillah. maxaa la yidhaahdaa arday badan ama dhalinyaro badan oo halkan hadda qaarna ku dhasheen qaarna iyagoo yar la keeno ku koray ayaa waxay ku jiraan jaamacadda ugu weyn regionkan ee la yidhahdo Denmark. facultiyadeeda kala duwan, qeybaheeda kala duwan ay wax ka bartaan. qaar badan waxay bartaan waxbarashooyinka loo yaqaano videogoon udanse. marka statistic ahaan aad fiirisid Soomaalida khaasatan halkan degan aad bay u fiican yihiin. maxaa la yidhahdaa laakiin markaad la dhegeysanaya ama meelaha laga akrinayo jaraa'idada waxaa laga yaabaa qaabka ay statistic ahaan ama ay u sameeyaan tirakoobka inuu mid qaldan yahay oo waxay yidhaahdaan dadka ka weyn da-dooda 45 wixii ka sareeya. marka taasna waa dadkii ugu horeysa waddanka yimid iyagoo dad waaweynah waxayna u badan yihiin dadka maqan suuqyada shaqada. marka dhinaca waxbarashada waad noo sheegtay. suuqa shaqada haddii aad qiyaasi lahayd boqolkiiba intee ku jirtaa? macnaha hadda tii u dambeysay statistic ahaan hadda mid socotaa jirto oo aan xiiseynayna inaan mar dhow helno. laakiin macnaha runtii waxa weeyaan shacabka Soomaalida marka loo fiiriyo shucuubta kala degan markii aan ka hadlayna dadka waaweyn suuqa shaqada aad bay uga maqan yihiin. laakiin macnaha muddo yar gudaheed ayaa isbedel weyn dhici doona. maxaa yeele hadda intan dhalinyaradan badan aada ku wada jirta waxbarashooyinka loo yaqaano profession udanse ama waxbarashooyinka shaqooyinka dadka siiya sida social qolgiyo suibliska waxyaabahaas oo dhan dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed baa barata oo aada ugu jirta. kuwaasna iyo birigo waxaas oo dhan waxay keenayaan hadhow markii la dhaho suuqa shaqada in Soomaalidu ay noqon doonaan nationada ugu horeeya hadduu ilaahay. golaha cusub ee deegaanka ayaad cabdirashiid kusoo biirtay. marka hore waan ku hambalyanayaa. marka labaad waxaan jecel balan ku weydiiyay tirada guud ee xubnaha golaha deegaanka ee magaalada Odense waa imisa? waa 29 walaal xubnaha golaha deegaanka magaalada Odense. xisbigaygan oo aad saad u sheegtay alternative leerada waa markii ugu horeysay uu iska soo sharaxo golaha deegaanada ee Denmark. xisbigani marka hore wuxuu ku jiray baarlamaanka dalka Denmark. waana markii ugu horeysay hadda iska soo sharaxna waxaan loo yaqaano golaha deegaanada iyo gobolada regionada iyo maxaa la yidhahdaa kumuunayaasha. tiro fiicanna way noo soo baxeen. xisbi ahaan xisbiga alternative maaha inaan dacayad u sameynayo. waa xisbi ay dacad ka tahay in ay mar walba garab istaagaan dadka laga tabarta iyo awoodda badan yahay, dadka mataqaanaa la liido ay u badan yihiin ajnabiga qaxootiga iyo khaasatan ummadaha islaamka ee muslimka. sidaad la socotaanba siyaasadda Denmarkna hadda waxay aada ugu wajahan tahay markii wax la sheegayo siyaasad ahaana la isqaybinayo oo loo yaqaano mataqaanaa iyagiyo annaga. marka laga hadlayo siyaasadan loo yaqaano demos iyagiyo annaga, macnaha waxaad arkaysaa in wax walba markii ay rabaan inay yidhaahdaan wixii socon waayey waxaa iska leh dadka dunida saddexaad ka yimaada ama qaxootiga loo yaqaano igivestly baqoon dadka ka yimaada wadamada kale sida qaaradaha Africa, wadamada bariga dhexe iyo waxa ka wada qaarada bariga dhexe dadka af Carabiga ku hadla. dadkaasay ku target garayaan. hadda maanta u dambeysay dooda u dambeysay Folketing waxay ka hadlayeen sidii ay u mamnuuci lahaayeen in hablaha muslimka ay qaataan xijaab iskuulada. marka taas waxaad arkaysaa marka hore waxay ku bilaabeen niqaabka oo aatan in wejiga dhan gabdhaha qarsoon inay mamnuucaan siday usii socdaan in maalinta ka dambeysa target laga dhiganayo dadka noocaas oo kale. marka alternative marka noqdo xisbiyada keliya marka la raacsiyo in isliista miiska garaaca oo yidhaahda arrimahaas arrimo fiican maaha. waan gartay in cabdirashiid xubnahan 29 ah golaha deegaanka hadda kusoo baxay dadka kasoo jeeda jinsiyadaha kale marka adiga laga tago ilaa mise xubnooda kalaas soo galay.
macnaha dadka ajnabiga loo yaqaano waxaanu nahay afar siyaasi macnaha afar siyaasi oo laba kamid a aniyo wiil kale oo soomaaliya ku jirna social dimuqraadiga iyo wiil turki ah iyo wiil kurdi ah afartaasaan nahay markaad fiirisana saddexda kale waxay ay xubin ka yihiin xisbiga loo yaqaano social democratic anigu unbaa kasoo jeeda xisbiga alternative markii si loo fiiriyana mataqaanaa siyaasadan golaha deegaanka waxaan kusii jiraa golaha loo yaqaano caruurta iyo dhalinyarada banowdal taas oan anigu doortay sababtana wax kale maaha ilaa iyo 1989 waxaan ka shaqaynayay maxaa la yihahdaa qaybtaas waxaanan u dhuun daloolaa qaabka shaqada ay u socoto caruurta iyo dhalinyarada waxyaabaha badan een hadda aan usii doortayna waxaa kamid ah in macnaha waxa ugu wanaagsan la maalgeliya inay tahay caruurta wax kalena maa markay noqoto in basically hoos laga soo dhiso waxbarasho ahaan lasoo dhiso karminaalku markaas wuu yaraanayaa qof kastana markuu dhisan yahay bayskiisuna meel walba waxbuu la qaybsanaya bulshada uu ku nool yahay laakiin caruurta hadday nolosha ka xumaato wax walba wuu xumaanayaan waan gartay waxaa jirta imika siyaasadda ama qorshahan ah in la baabiyo xaafadaha ay ku sheegeen getada waxaa taargad u ah xaafadda la Falas Muusan oo ay dad badan oo Soomaaliyeed degan yihiin balse ama qorshaha guud ee dawladdu ay dabacsantahay inay ku baabiso xaafadda in ka siyaasi ahaan bal marka hore warbixin yar oo kooban naga sii iyo haddaad tiimidinku magaalada Odense siyaasina aad tahay bal qorshaha magaaladiina horta maxamed amino qorshahan loo yaqaano siyaasadda xaafadaha geesooga ama xaafadaha dadka ajnabiga ay u badan yihiin waxay noqotay sanadadii u dambeysay wax laga dhigta target oo mar walba markii la yiraahdo kale haddii integration of file noqday haddii isdhexgalku ay xumaatay waxaa sabab u ama saldhig u ah xaafadaha ay dadka ajnabiga u badan yihiin khaasatan dadka ajnabiga kasoo jeeda dunida saddexaad xaafadana hadda magacooday ee Falas Muusan waxay ku taalaa magaalada Odense waxaa degan dad qiyaastooda gaaraysa 9,700 qiyaastii 10,000 waxay u dhigantaa dadka degan xaafadda Falas Muusan shacabka ku nool magaalada yar ee Nyborg la yiraahdo ee gobolkan Sweden marka Nyborg macnaha marka la fiiriyo statistically criminalka ka dhaca weekend kasta maxaa yeelay marmarka qaarkood waxaan martaqaana kulamo ku wada yeelnaa Finnish police ama booliska gobolka Sweden waxay yiraahdaan waxaa ka activity badan weekendadoo kale ama dhibaatooyinka u badan magaalada Nyborg marka xaafadda Falas Muusan loo fiiriyo laakiin waxaa laga yaabaa statistically in wiil yar oo ajnabi ah xaafadda Falas Muusan degani uu keligiis 70% ama 75% dambiyada laga galo magaalada inuu wiil yar sameeyo marka waxaa laga yaabaa statistic ahaan markay sheegayaan oo kale maadaama wiilkaas uu ajnabi yahay ama familkiisu ama ay kasoo jeedaan xaafadda Falas Muusan oo kale inay statistic ahaan kor ay usoo qaadan ay yirahdaan intaasoo sanadkii 2016 ama 2017 inta criminalka ka dhacay xaafadaas intaas ay ahayd percentagekeeda shakhsiyaad yar baana sameeyey waxaana degan sidaan kuu sheegay hadda qiyaasi dad 10,000 gaaraya macnaheedu waxay tahay in statistiga ay sheegayaan iyo dadka degan dembigooda inaan islahayn maxaa 10,000 hadday maalin walba ama weekend kasta ay arbashaad ama rabshad samayn lahaayeen dee magaalada Odense lama deganaadeen waan gartay marka dee xalna waa soo socdaa hadda waa waxyaabaha ma raba inaan kasii hordhaco waxaa noo socda wadahadalkaasna haddaan nahay anagu ahaan xisbiga alternative waxaan isku siyaasadaan isku soo dhownahay xisbiga inhislist waxaanu qorshayaalaha inaan soo dhegedhegayna shacabka laftigooda waxa ay ka tirsanayaan waxa ay rajeynayaan in xaafadda lagu soo kordhiyo maxaa yeelay siyaasadan guud ee dowladda ay sheegaysaa in xaafadda la burburiyo uma aragna xalku maaha inaad dhismo burburiso dhismo cusub dhisto oo istiraado problemka waad xalisay maxaa yeelay dadkan laftigooda waxay u baahan yihiin inaad meel dejiso meeshaad dejinaysid waa inay siyaasadda dowladda ku jirtaa qorshe ah ma awoodi karaan guryaha xaafadaha qaarkood oo kale barcelona hus xaafad kale ku yaala waxaa laga yaabaa reer dhaqaalahooduba ay qaata ceyr inayna ka bixi karin marka waxyaabahaas oo dhan lagama fikirin marka taasna doodeeda way noo socotaa hadda waan gartay cabdirashiid oo dhinaca waxbarashada ama iskuullada ku dhow xaafadda Falas Muusan iyo xaafadaha kale ay dadka ajnabiga ku badan yihiin qorshayaasha gaar ahaan degmooyinku hadda wadan waxaa kamid ah in caruurta iskuulladaas dhigta la firdhiyo ama la qaybiyo iskuullada kale loo qaybiyo idinka magaalada Odense saas ma tahay
macnaha ulinse horta dhaqan ahaan waxayba u lahayd ba dadka ajnabiga xaafada balsamuusa ku nool iyagaaba doorbidi jira inay caruurtooda ay u diraan iskuulla xaafado kale ku yaalo waayo waalidiin badan waxaa jira xitaa soomaaliya ajnabi kalaa waxay jecel yihiin caruurtooda inay iskuulla usoo diraan ani hadda caruurtooda iskuul kale dhigtaan marka caruur badan oo balsamuusa ka timaada ayaa yimaado iskuulka taas shacabkeeda ay ka go-oneyd taas inay sameeyaan tan siyaasadan dawladda ay siyaasadeynayaan ay leeyihiin caruurtii baan rabnaa inaan qaybino xanaanooyinkao kale ma tagaan xanaanooyinkan ku qasbaynaa hadday ka baaqdaan waxaan ku sameynayna waxa la yidhahda foildak boleg oo ah inay ganaaxaan waalidkaas oo kale lacagta caruurta laga gooyo waxyaabahaas oo dhan wax horta cusub maaha way soo jireen laakiin dembi ahaan dad lagu qaaday ma jirin tan caruurtan la kala qaybinaya iskuullada magaalada daafadeeda loo kala qaybinayana waa wax caadiya soo jiray waalidiinta iyagaaba xiiseyn jiray inayna iskuullo kale caruurtooda u dirsadaan problemka macnaha marka anigu fiiriyo aan xaafadaas aan soo degdegayo ama soo maro waxaan arkaa mar walba xaafadda waxaa soo dega dad cusub dadkii hore markay ay galti baxaan oo ay la qabsadaan wadanka ama magaalada la qabsadaan ama suuqa shaqada ay soo galaan ama xaafado kale u guuraan hadda waxaa jira khaasatan nationada markaad fiiriso jinsiyadaha kala duwan hadda carab badan waxaa jiri jirtay gurye intay gateen ka guureen turki sidoo kale soomaalida saa uma badna guryo gadato oo xaafado kale u guura laakiin dadku waxaad moodaa waxaa booskooda soo gelaya suuriyaan cusub iraaqiyiin cusub booskii falastiiniyiintu ka baxeen kuwii dhibka badnaa sii deganaadaan marka mar walba horta isbedel baa xaafadda ku socda waan gartay haddii cabdirashiid ugu dambeynna ko barnaamijyada dambe kolley aanu kugula soo xidhiiri doono waxaan jecel ugu dambeyn haddii aad jeceshahay fariin aad doonaysa dadka inaad gaarsiso soomaalida waayo inta badan dadka soomaalida ah siyaasada gudaha ama degmada dalka inta badan aada lama socdaan marka haddii aad fariin u gudbinayso dadka soomaalida ah adiga oo yacnihii focus ka saaraya ama eegaya siyaasada guud ee dalka iyo dooda baarlamanka maxaad gaarsiin lahayd waad mahadsantaha fursadan aad heshiisa maxamed amiin waxaan jecelahay in waanaan rajeynaya hadduu ilaah yirahda inaan fursado kale sidan lamid oo kale aynu helno aynu shacabkeenu usoo bandhigno siyaasadda iyo siyaasadda hadda ka jirta denmark khaasatan shacabkeena waxaa jiray xoogooda waxay yimaadeen soomaalidu 4 iyo 9 5 iyo 6 iyo 9 badankooda xoogooda waktiyadaasi soo galeen waxaadna moodaa dadka waagaas yimid inay la kulmeen siyaasad ka duwan tan hadda socota waxaad arkaysaa soomaali badan oo ku dhahaya weligay anigu waxaan u odayaa xisbiyada ay u yaqaanaa xisbiyada gaduudka xisbiyada cascas sida social democratiga SF-ka sidaasaan weligan dhaqan ahaan usoo lahayn bay kuleeyihiin marka tiraadadoo kale okay ma inaad u odaysaan xisbiyada gaduudka laakiin xisbiyada gaduudka laftigooda way kala tegeen maanta waxaad arkaysaa marka siyaasadda aad fiiriso tan ka wadanka waxaad arkaysaa in xisbiyada maanta ugu cadcad ee ajnabiga ku taagan ay kamid yihiin xisbiyada qaarkood oo weligood waagi hore dhaqan ahaan loogu yaqaana inay difaacaan ajnabiga tusaale waxaan soo qaadanaya kale social democratic oo kale macnaha markaad fiiriso waktiyadaasaan sheegayo 6 ilaas waxay weli jireen siyaasad loo yaqaano tan pro ajnabiga inay garab istaagaan dadka laga tawardawan yahay inay maaragtay ay difaacaan haddase waxaad u malaysaa marmarka qaarkood inay kaga dheereeyaan xisbiyada mas-uuliyiinta sida folkbarti oo kale waxyaabaha qaarkood marka la dhahayo kale sharci bixinta oo kale lowfosleg oo kale waxay u badan tahay inay markasta ay lasoo istaagaan oo kale inay target ka dhigaan oo kale iskuullada islaamka oo kale for example free school ee muslimka inay yidhahdaan oo kale waxyaabaha xun baa ka dhaca la xiro waxaa ku xiga tan hadda aan sheegayo oo kale xijaabka oo kale macnaha taas waxay keenaysaa in shacabkayga kula talinaya inay ka fiirsadaan meesha ay codkooda siinayaan ama dadka ay odaynayaan sababtana wax kale maa maxaa yeelay xisbiyadan kale ee hadda yar ama sida Newsleaf ama Alternative xisbigu waabuu yaraa xisbiyadan waaweyn laftigooda waabay yaraayeen oo way soo koreen macnaha waxa weyaan adiga ajnabiga ah waa inaad garab siisaa xisbiga aad leedahay danta kugu jirta ama waxbay adiga ku hadlayaan ama codkaaga ku hadlayaan taas baan kula talinaya dadkayga teeda kale waxaan kula talinayaa dhalinyaro badan oo meeshan ku dhalatay oo wax ku baratay ay jirto in waalidiintu ay fursad siiyaan caruurtooda kala sheekeystaan siyaasadda inay fahmaan waxa siyaasaddu siday ugu kala qaybsan tahay garbaha siyaasadda siday kala yihiin garabka midig garabka bidix sida siyaasadda denmark maalin walba iskusii bedelayso inay fahmaan waxyaabahaas oo dhan
waxaanan ku faraxsanahay idaacadda sida tan oo kale hormuud oo kale meelaha qaarkood dadku ay dhegeysanayaan oo kale inay ka faa'iidaystaan xitaa waxaan rajeynaya mararka dambe xitaa dadku inay fursad u helaan teleefon soo diraan si ay su-aalaha ay qabaan oo kale jawaab looga siiyo waxyaabaha qaarkood ay isleeyihiin oo kale maxay ku kala duwan yihiin oo kale hadda tusaale ahaan dad baa marmar aan uga wada tartamayna dhaho inay alternative maxaa ku kala duwan tihiin maanaa markaan u sheegana waxaa irahda waxyaabahaas boqolkiiba 70 waxa weeyaan siyaasad ahaan waan isku dhownahay laakiin waxaan ku kala duwannahay sidaa isla markaa irahdo tusaale ahaan markaas ay fahmaan marka dadkii waxay u baahan tahay waqti badan bay u baahan tahay in waxyaabo badan ay fahmaan waxaan rajeynayaa inay aada uga faa'iidaystaan dhalinyarada qaasatan dhalinyarada oo dhan dhalinyarada aada u dhegeysta ama la socda siyaasadda Denmark. aad baad mahadsan tahay waxa waa cabdirashiid xaaji abuukar cabdi oo ah xubin ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada Odense. wehelkayga weeyaan wiilayga beeriyo wadnahayga weeyaan wali aniga caashaqo wehelkayga weeyaan wiilayga beeriyo wadnahayga weeyaan wixii ka sheegtanaa iskuma wanaagsan wixii ka sheegtanaa iskuma wanaagsan warna lama dhexmari karo ay hooyalayo hooyalo hooyalo hooyali ay hooyalayo hooyalo hooyalo hooyali weligay kaman qabani iliguma wetayne weligay kaman qabani iliguma wetayne وقل ضروري وبحن وربشين بكولا ولا لا وقل ضروري وبحن وربشين بكولا ولا لا وعاد بانو ليلي وحياة شركيقانا سوادي سويان واللي عني عاشق وعاد بانو ليلي وحياة شركيقانا سوادي سويان وضرتيك عبطنا اسكم بونكسان وغرتيك عبطنا اسكم بونكسان ورنا ما دحمري كرو اي هو يلايو هو يلو هو يلو هو يلي ay hooyalo hooyalo hooyalo
qabani iliguma wetayne waligay kamal qabani iliguma wetayne وقل ضروري وبحن وربشين فكله ولا لهي